kulan wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dallada Sooma oo ah dallada ay ku mideysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Somaliland. Barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaalada iyo meel ka baxsanba. Anigoo Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. barnaamijkeenan toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa koox dhaqaatiir ah oo Muqdisho ka bilaabay ururinta xogta caafimaad ee shakhsiga iyo in dadka ay u fududeeyaan helidda adeegyada caafimaadka isbitaalada. dhalinyaro barnaamij looga hortagayo aragti la'aanta dadka waaweyn iyo kuwa yaryar oo boqolaal qof uga sameeyay baaris caafimaad oo bilaasha gobolka Shabeellaha Hoose iyo waraysan idinkaga hayno saameynta caafimaad ee aragga ay ku yeelan karaan isticmaalka badan ee mobilada iyo kombiyuutarada. aan ku bilownay koox dhaqaatiir ah ayaa Muqdisho ka bilaabay in ay diiwaan galiyaan xogta shakhsiga ah si ay u fududaato wax ka qabashadiisa haddii ay xaalad degdeg ah ula kulmo qofkaas oo isbitaaladana la geeyo. sidoo kale waxa ay dhaqaatiirtan oo jaamacadaha Muqdisho ka baxay dadka siiyaan kaarar caafimaad oo u fududeynaya ku tagidda isbitaalada ay xiriirka leeyihiin, kaas oo u sameynaya qiimo dhimis la xiriirta adeegyada caafimaad ee loo sameeyay, iyaga oo rajeynaya in hawshan ay sii ballaariyaan sida ay warbixintan noogu eegayso Shukri Caabi oo Muqdisho ku sugan. 40 dhalinyaro dhaqaatiir ah oo ku nool Muqdisho ayaa bilaabay in bulshada ku nool degmooyinka gobolka Banaadir ay ka caawiyaan sidii u heli lahaayeen kaarar caafimaad oo u fududeynaya adeegyada caafimaadka isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Shirwac Faarax Kulana waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aasaastay xarunta kaararka caafimaadka Soomaaliyeed dhamaadkii sanadkii 2020 kadib markii ay arkeen isaga iyo koox kale oo dhaqaatiir ah baahida dadka ay u qabaan la kulanka dhaqaatiirta fadhiisata isbitaalada Muqdisho oo dhib badan ay ka maraan la kulankooda. waxa uu sheegay in xaruntan ay bixiso 3 nooc oo kaar caafimaad ah, kuwaas oo kala midka ardayga loogu talagalay, kan qoyska iyo midka shakhsiga oo dhammaantood ka caawinaya in si fudud loo helo adeegyada caafimaadka ee loo baahan yahay iyadoo uusan dhacaynin kaarkani muddo sanad ah. Shirwac ayaa tilmaamay in dadka qaata kaararkani laga qaado khidmad yar oo lacag ah, sidoo kalena loo sameeyo qiimo dhimis qofka uu dalban karo isbitaalka u baahan yahay inuu aado, kadibna qof walba marka uu tago isbitaalkaasi la soo dhaweynayo wax walba u baahan yahana loo qabanayo. waxa uu Sooma u sheegay in ilaa hadda oo laga joogo muddo 2 sano ah ay bixiyeen 1500 oo kaar oo bulshada ay aad u soo dhaweeyeen adeegan ay u sameeyaan, balse ay jirto in mararka qaar ay la soo xiriiraan bukaano u baahan adeeg caafimaad oo dibadda ah kuwaas oo dalka wax looga qaban waayay, midaasina aad ugu culus tahay ka dhalinyaro ahaan. sameynaa kaambeynadaas oo dhowr noocyo ah oo horena aan usoo sameynay ay kamid yihiin kaambeeno aan u talgalnay bajaajleyda ama qolooyinka darawaliinta ah, nooc walba ay yihiinba inaan u sameyno aqoonsiyo oo ay ku xusan yihiin qofka magaciisa saddexan, nambarkiisa iyo dhiiggiisa iyo qofka markaas uu xaafadda uu la joogo ama uu la nool yahay iyo nambarkiisa. kaambeeno noocyadaas ah iyo kaambeeyo aan ugu talagalnay qolooyinka ama dadka aan haysanin lacag ku filan ee ku tagaan isbitaalaadka ee degan kaamamka waxyaalahaas aan u sameynayna inaan gaarsiino adeegyo caafimaad aan u wadno dhaqaatiiro iyo isbitaalo. marka bulshada waxyaalahaas aan u qabanaa. marka waxaa jira dad badan oo ka faa'iideysta kaararkan caafimaadka ah oo qaarkood awoodi waayay lacagta isbitaalka ay ku aadi lahaayeen, balse dhalinyaradana ay ku caawiyeen inay helaan kaarar free ah oo adeegyo caafimaad oo bilaash ah ay ku heli karaan. Axmed Nuur Xasan oo kamid ah dadka aragga naafada ka ah ayaa kamid ah dadka helay kaararka caafimaadka ee dhalinyaradani bixiyaan, isagoo muddo sanad ah ku aadi kara isbitaalka Digfaar ee Muqdisho ee uga baahnaa dhakhtarka caruurta maadaama ay ka xanuunsanaayeen 3 kamid ah caruurta uu dhalay. waxa uu Sooma u sheegay inuu qaatay 2 kaar oo mid kamid ah isagoo u baahnaa, midka kalena qoyskiisa u qaaday. waxa uu xusay inuu awoodi waayay lacagta isbitaalka iyo midda lagu qaato kaarka, balse uu caawinaad ka helay dhalinyaradani ayna u fududeeyeen helitaanka adeegyada caafimaadka u baahnaa haddana oo isticmaalayo muddo 6 bilood ah.
Axmed Nuur ayaa tilmaamay in bulshada uu ka tirsan yahay ee dadka qaba baahiyaha gaarka ah ay ka duwan yihiin dadka caadiga ah ayna ka baahi badan yihiin bulshada inteeda kale. Waxa uu xusay in marar badan uu isku dayay inuu raadiyo shaqo ay u suuragali weysay keliyana ay nolosha qoyskiisa ku tiirsan tahay qarashaad yar oo ay ka helaan dadka eheladiisa ah. ma rabno wax la yiraahdo 90% sababtoo ah annaga Soomaaliya shaqana lagama siiyo ma shaqeyno jaamacada waa ka wada baxnay xaasasaan leenahay qaarkeen oo hay'ado u guuriyeen caruuraan leenahay laakiin caruurteen iyo xaasaskeen hadii xanuunsan meelan geeyna ma hayno annagii meelan tagna ma hayno maadaama aanan haynin shaqeyninna 90% haddaad firiina siisaan xataa oo aad qiimo dhimis noo sameysaan ma awoodno 10% kale inaan iska bixino marka waxaan rabnaa inaan siisaan free oo dhameystiran sidoo kale wax maxaan ku raadayay ma awoodno muddo sanad ah ama bilaa idin siinaya kaarkan uu idin shaqeynaya isbitaalka kadibna uu idin ka dhacayaana ma awoodno waxaan ka rabnaa isbitaalka hal kaar ba Allah ka dhigo inuu yahay qof isbitaalkaas intuu jiro ama managementigiisa inta qofka joogo intuu joogo inaan qofka aragala uu tagayo inuu free u yahay ka dhameynay Muna Cabdulaahi oo ah ardayad ka faa'iideysatay kaararkan ay bixiyaan kooxda dhaqaatiirta ah ayaa dhamaadka bishii Agoosto aynu soo dhaafnay dawooyin iyo baaritaano caafimaad ee u baahnayd ka heshay isbitaalka Masaarida ee magaalada Muqdisho kadib markii ay heshay kaarka caafimaadka nooca ardaynimada loo qaato. Waxa ay xustay inay heshay qiimo dhimis 50% ah keliyana ay iska bixisay kala bar lacagta adeegii caafimaadka ee loo sameeyay. Aadna ay ugu faraxday howshii loo qabtay maadaama ay tahay arday shaqana aysan haynin qoyskeedana ay yihiin kuwa danyar ah oo aan awoodin xitaa inay ka bixiyaan lacagta jaamacadda oo ay hadda ka bixiyaan dad qaraabadeeda ah. Waxay sheegtay in muhiimad gaar ah u leeyahay kaarkani maadaama ay heshay isbitaal iyo dhakhtar u gaar ah iyada oo ay u tagi karto markasta ay u baahato iyada oo bulshada inteeda kale ugu baaqday inay ka faa'iideystaan fursaddan muhiimka ah. Kaarkii uu taaganaya kaarka markuu uu taagto meesha waxa ku qoran serial number lambarkaas system kala gelinaya qofka xogtiisa oo dhameystiran soo baxay dan ka bacdi qofku waxa la lahayaa dhakhtarkay u baahan tahay inaad si free kula kulanto qofka dhakhtarku u baahnaa inuu la kulmo uu direct kula kulmaya asoo yani wax qarash asoo san dhiibin dhakhtarka markuu la kulmo dhakhtarka sheebaaro iyo daawo ay shay uu diraya qofkii. Shirwac Faarax Kulana ayaa soo u sheegay kadib markay arkeen bulshada baahida adeegani ay u qabaan sidoo kalena ay dhaqaatiirtan ay ku fikireen muhiimadda ay leedahay in qof kasta oo caasimada ku nool uu helo dhakhtar gaar ah oo uu si joogto ah ula xiriiro. Waxa uu tilmaamay in hadda ay wadaan sidoo kale qorshe ay ku keedinayaan xogta caafimaadka ee shakhsiga si uu qofku u helo marka uu xaalad degdeg ah la kulmo looguna sameeyo badbaadinta uu u baahan yahay. Shirwac ayaa xusay in xilligan ay wadaan dadaal ku aadan sidii ay xiriir toos ah ula yeelan lahaayeen isbitaalada dibadda si ay u helaan marka uu bukaan u baahdo adeeg caafimaad oo dibadda ah. marka taasan dhibaato badan ay kaga iman karto dhakhtarkan haduu information-kaaga uu og yahay wixii ku roon iyo wixii ku fiican uu yaqaan laakiin dhakhtar aan ku aqoonin aad u sheegtay madax xanuun kaliya madax xanuunkii daawada oo ku siinayna aad ku qabtay xasaasiyo dhibaato kaaga imaanay laakiin hadii dhakhtarka uu yahay wixii xasaasiyad aad ku qabtid wixii aad ku wanaagsan tahay wixii aad ku xun tahay wixii ku dhibaayo dhammaan wuu wada yaqaanaa marka waxa dhihi lahaa ama waxaan jeclaan lahayn ama waxaan rabnaa in insha Allah dawladda inaan bulshadeena intii number aan ka bedeli karno inaan anaga ka bedelno. dhinaca kalena gobolka Shabeellaha Hoose deegaano iyo degmooyin ka tirsan waxaa ka socda adeegyo caafimaad oo isugu jira baaritaan iyo daweyn bilaash ah oo loo sameynayo dadka danta yar ee ku sugan halkaas. Waxaa loo sameynayaa baaritaan guud oo caafimaad iyadoo markaas kadibna bukaanka la siinayo daawooyin uu isaga daweyn lahaa cudurka laga sheegay. Adeegyadan caafimaad waxaa loo sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool 5 degmo iyo deegaano hoos yimaada oo gobolka Shabeellaha Hoose ah. Waxaa jira sidoo kale dadka waxyaabaha laga baarayo inay ka mid yihiin aragti la'aanta. Maxamed Cabdiraxmaan oo jooga Walaweyn ayaa ka soo diyaariyay warbixintan. dadka ku nool degmooyinka Afgooye, Walaweyn, Marka iyo deegaanada hoostaga ayaa helay adeeg caafimaad oo isugu jira baaris iyo daweyn lacag la'aan ah kaasoo ay fuliyeen dhalinyaro baratay cilmiga caafimaadka ee ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose. Hawshan ayna soo wadeen tani bishii Maarso ee sanadkan
iyadoo dadkii u baahan inuu tago isbitaal ay ka caawinayeen inay geeyaan si wax lagu qabto xaaladiisa caafimaad. Cabdulaahi Cabdidheere oo ka mid ah dadka deegaanka Buulalow oo hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka faa'iidaystay isaga iyo wiil yar oo uu dhalay oo 2 jir ah adeeg caafimaad oo aragga ah oo lagu geeyay gurigiisa halkii uu safar ka geli lahaa bartamihii bishii aynu soo dhaafnay ee Sebtembar, iyadoo sidoo kale la siiyay dawooyin lacag la'aan ah iyo sidoo kale talooyin caafimaad. Waxa uu sheegay in xanuun daran iyo xoogaa humaag ah uu ka dareemay ishiisa bidix, balse uu u waayay lacag uu isbitaal ku yaalo Muqdisho amaba gobollada kale ku aado, maadaama uusan awoodin bixinta kharashka ku baxaya daweyntiisa, isla markaana ay inta badan xoolihii uu haystay galaafatay abaarihii dalka ka dhacay. Cabdulaahi oo qoyskiisa uu ka kooban yahay 6 ruux ayaa aad ugu faraxsan sidoo kale in wiilkiisa yar ee Maxamed uu helo adeeg caafimaad oo ahaa in laga daweeyay burukiito daran oo haysay, maadaama ay sidoo kale jirtay jug soo gaartay bilowgii bishan Oktoobar uu la xanuunsanayay ka hor inta aan daweyn loo samaynin. adeeg caafimaad daawo waxaa nala sii lacag la'aan baaritaan oo nagu sameeyay taasoo aniga aan aad jirnay meel dheer ilaa ceelasho ilaa iyo camar oo aan ka helno hoosteena oo Ilaahay noo fududeey si fiican waa oo muslimnimo oo maxaa Soomaalinimo badan baahweyna sugay wax badan sugaynay taasoo hadda Ilaahay noo fududeey oo dadka walaaleen aan ka helnay oo lacag la'aan oo nagu saaciday marka sidaas daraadeed waa u duceynay cidii intaas garab nagu siisay ayadana Ilaahay garab ha siiyo. Abuukar Shuute Xuseen oo ah gudoomiyaha dhalinyaradan bixiya adeegga caafimaad ee indhaha ayaa Sooma u sheegay in dad ku dhow 700 oo ruux ay ka faa'iidaysteen adeeggan ay isugu jiraan dad waaweyn iyo kuwa yaryar, isla markaana ay ku kala xulanayeen hadba sida ay kiisaska u kala daran yihiin. Waxa uu tilmaamay in haddii bukaanada qaar u baahdaan qalliin ay u diraan isbitaalka ku yaala Muqdisho ay xiriir fiican leeyihiin, isla markaana lagu qaabilayo qiimo dhimis aad u badanna loo sameynayo qofkii ay diraan. Abuukar ayaa xusay in hawsha ay soo wadeen tan iyo bishii Maarso ee sanadkan, isla markaana ay jiraan weli baahiyo caafimaad ay qabaan dadkan, iyaguna ay sii wadi doonaan hawsha inta xoogaa isbeddel ay ka dareemayaan dadka ku nool gobolka Shabeellaha Hoose. Waxa uu sheegay in indhaha kaliya aysan ahayn adeegyada caafimaad ee ay u baahan yihiin, balse ay jiraan baahiyo kale oo ay hadda ku wadaan daraasooyin, markaas kadibna ay ka shaqayn doonaan sidii ay dadka jilicsan iyo danyarta lagu faa'iideyn lahaa fursadaha ku jira gacmaha dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose. Waa rajaynaynaa barnaamijkan waa sii wadi doonaa intii aan kari karno ayaan ugu adeegaynaa bulshada. Xaawo Aadan Khayre oo ku nool deegaanka Mareerey iyana hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay aad ugu faraxsan tahay baarista iyo daweynta lacag la'aanta ah ee lagu sameeyay halka ay ku nooshahay, iyadoo ka cabanaysay in iftiinka badan uu indhaha ka dhibayo. Waxa ay sheegtay in maalin iyada oo joogta beerteeda ay u yimaadeen dhalinyarada kadibna ay su'aalo weydiiyeen, isla markaana loo sheegay inay wadaan adeeg caafimaad oo indhaha ah oo ay si bilaash ah ugu qabanayaan. Xaawana ay dalbatay in loo sameeyo si xal loogu helo dhibaatada xagga aragga ah oo ay dareemaysay, isla maalintii xigtana loo sameeyay baaris iyo daweyn aan wax lacaga looga qaadin. Xaawo ayaa tilmaantay in 12 qof oo ehelkeeda ay gaarsiisay fariintan, kuwaas oo ka faa'iidaystay hadda ay yihiin kuwa ka badqaba dhibaatooyinkii ay ka qabeen indhaha kadib adeegyadii loo sameeyay. Sidoo kale waxa ay sheegtay in adeegyada caafimaad ee deegaanka Mareerey iyo kuwa hoostaga ay u baahan yihiin adeegyo kale oo caafimaad, maadaama ay yihiin dad isugu jira danyar iyo dad soo barakacay. baahawiinga aan qobni eedan ka faraxsanya intina niisheena caafimaadkun sababto haddii oo magaalada xamar aan bahaan ama Afgooy aan bahaan haddii la ara caafimaadka isbitaalada la seedo beesuu baabuurkii la rahow naftirshe beesa kale faday haddii oo isbitaalkii beeslaan adka hala hadda eedan ka faraxsanya intii oo lacag la'aan liin ka shaqeeyna farxad eedan ku wiin iyaan arage baahawiin aan qobni intii nin shaqeey hadda fadhigaanina ninka kooy walwalba fadhigaanina ninka qobdi oo beesina ninka bana waqtina ninka dhungna iyo fadhigaanina ninka suubi baaritaanka la insuubi baaritaanka markii la insuubi kadib oo la ogaadi bal aan qobo daawooyin faylal isii maasha Allah eedan ka maadiye. weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaagga Sooma oo Muqdisho idinkaga imaanaya.
isticmaalka aaladaha casriga ah sida kombiyuutarada, moobilada casriga ah, TV-yada, iPad-ka, tablet-ka iyo qaybo badan oo ku shaqeeya korontada ayaa loo arkaa in indhaha ay ku daayaan shucaac daran. Dhakhaatiirta caafimaad ayaa ku talinaya in indhaha la nasiyo 20 daqiiqaba hal mar, iyadoo qofka uu fiirinayo meel fog. Tani waxa ay sheegayaan dhakhaatiirtu in indhaha ay u ilaalinayaan caafimaadkooda una dhowrayaan awoodda aragga ee dabiiciga ah. Haddaba, sida ay saameynta ugu yeelan karaan isticmaalka xad-dhaafka ah ee qalabka elektarooniga waxaa ka wareysan Dr. Maxamed Muuse Jeelle oo cilmiga daaweynta indhaha ka soo bartay dalka Suudaan. adna sidoo kale soo dhawaad Axmed Tifow waana kaaga mahadnaqayaa hawsha aad u haysid bulshada. Waxaa jira waxyaabo badan oo la soo guuriyay amba buxuus lagu sameeyay ilaa welina si gooni aan loo cayimin. Horta aaladaha markuu qofka isticmaalayo yani focuskiisa inta badan aalada ayuu saaraa. aalada markuu saaro marka meesha waxaa ka baxaya shaqadii indhaha inta badan sameynaysa sida blinga wax la dhaha jiro. Blinga meeshaas markuu ka baxo qofku wuxuu dareemaa wax la dhaho jafaaf ama dry eye iyo daal. Marka xogaa saameyn oo noocaas ay ku yeelan karaan markii la dhahayo kombiyuutarada iyo taleefanada. Ayadoo markay jiraan saameynta noocaas ah, sidee dadka iyagoo isticmaalaya mataqaanaa kombiyuutarada iyo mobilada iyo wixii kale oo la midka ah ay uga badbaadi karaan dhibaatooyinka caafimaad ee indhaha soo gaara? Horta qaacida la dhahaa jirta 20-20-20. waxaan indhahan arkaysid waa yani ay cud oo kamida amba ay structure kamida function ay qabtaa. marka qofka uu hal meel marka focus ka saaro waxaa meesha ka baxayo cadalaadka kale amba muscleska kale hooday qabanayeen. marka cashankida qaacida la dhahaa jirto 20-20-20. yani qofka 20 daqiiqo marka uu yani wax rakiso waxaa yani loo baahan yahay 20 kale amba 20 ilbiriqsi inuu meesha u fiirinayo meel ahayn oo fiiriyo yani 20 feet yani 20 feet meel u jirto oo fiiriyo. sidoo kale waxay karaan in la isticmaalo ookiyaalaha difaaca iftiinka oo isha sida sunglasseska iyo kuwa kale oo yani fin isku meesha anti reflectionka yani si ay kaaga celiyaan. waayahay doctor mana la wadaagi kartaa cudurrada inta badan indhaha ee dadka ku dhaca? horta cudurrada hadda yani waa lagu kala duwan yahay. mar kastaba deegaan kale oo wax kaga duwan yahay amba dawlad amba qaarad ka qaarad. marka hadda sida caadiga indhaha inta badan cudurro kala duwan oo halistooda badan yani arkayso waxa ka cudurrada loo yaqaano yani bacteria amba bacteria conjunctivaha. Soomaali marka la dhahnay waxa aad ugu badan waxa la dhaho allergic amba xasaasiyad. cataractaha dhahan yani moya biyan isha galo iyo glaucomaha. waana wax aad yani u fiican in bulshada laga wacyi geliyo khaasatan cudurkan la dhaho glaucomaha yani dhahan tuuga araga yani inta badan calaamo gooni markuu ka soo daahirayo amba qofka una dareemi kareenin. maxay marka calaamadahaas tuuga indhaha aad ugu yeertay ee soo muuqanay? horta glaucoma marka la dhaho yani asbaabihiisa iyo qeybihiisa waa yani wuxuu baahan tahay waqti kale in laga waxeeyo laakiin qofka ma dareemayo. yani haddana sida ma ahan yani maanta sida cataracta oo kale oo qofka inuu ka soo daaho amba yani wuxuu ku fiican yahay ka hortag in la sameeyo. yani ma lahan sida cudurradan kale ee daawo u leeyihiin oo maanta sida bacteriadaas oo kale daawo siisa ka caafimaada maahan. yani wax waa for long time oo kula noolaanayo oo finnahaaya siinaysa daawo oo qofkan kaashanayo. yani inta badan wuxuu ka imaadaa waxa la dhaho intraocular pressure-ka oo zaid wuxuuna sababaa cudurkaasi waxa la dhaho indho la'aan. ilaa intee fiican dadka in baaritaan indhaha ay ku sameeyaan? tusaale ahaan ma bishiiba marbaa fiican, ma 6 biloodba marbaa fiican, ma sanadkii marbaa fiican? sidee ku talinaysaa?
wallaahi dadka caadiga ah oona cudur wax isku ogeynin inay sanadkii mar sameeyaan lixdii mar sameeyaan laakiin dadka qabo yacni cudurada qaar sida cudurkan gulukoomaha waxaa fadli badan 6 bilood amba mar kastoo calaamad dareemo qofka in uu sameeyo sida dhanna ishu يعني qofku markuu wax yar dareemo waxa fadli badan ba inuu yani dhakhtar iskala xiriiro laano ishu waa yani waxa la marka la joogo noloshu waa hadafka ugu horeeyo qofku yani socodsi karo marka ishu waa xubin muhiim marka waa xasaas qofku markuu wax yar ka dareemo inuu iska waxeeyo laakiin sida caadiga sanad iyo qofku cudurkiisa 6 bilood intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga Sooma waxaanse dhageystayaal idinkaga tagayaa su'aasha ah ma jirtaa saameyn caafimaad uu ku yeeshay indhahaaga isticmaalka moobilada iyo kombiyuutarka nala wadaag aragtidaada iyo su'aasha aad qabto adiga oo la soo xiriiraya taleefanada idaacadan mahadsanidin